xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa maanta kala saxiixday heshiis 100 milyan oo euro ah oo midowga Yurub si toos ah ugu taageerayo miisaaniyadda dawladda. Heshiiskan oo lagu saxiixay munaasabad lagu qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha uuna goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa waxa uu dhigayaa in midowga Yurub ay bangiga dhexe dalka ku shubaan 100 milyan oo euro. wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta caalamiga ah ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan iyo agaasimaha guud ee guddiga midowga Yurub ee u qaabilsan iskaashiga iyo horumarinta caalamiga ah Mr. Stefano Manservi ayaa si wada jir ah u saxiixay heshiiska. ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in heshiiskani uu yahay fursad weyn oo horseedi karta in deynta laga cafiyo dalka iyo in loo gudbo isku filnaansho dhaqaale. waxa uuna u mahad celiyay shacabka iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo dawladda ku taageeray kasbashada aaminaadda beesha caalamka iyo hay'adaha lacagaha adduunka. dhammaan dadka Soomaaliyeedna waxaan maantay halkan uga sheegaynaa in midowga Yurub iyo dawladda Soomaaliya maanta halkan xafiiska ra'iisul wasaaraha ku kala saxeexnay inay sanadaha soo socda dawladda Soomaaliya si toos ah uga caawiyaan 100 milyan oo euro lacagtaas oo lagu soo shubi doono bangiga dhexe sanadaha soo socda loona isticmaali doono inay dawladdu ku kaalmayso budgetkeeda. dawladda iyadoo la shaqeynaysa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gobolada oo dhan waxa marka hore muhiim ah in la fahmo in sanad iyo bar kadib dawladdeenu markay shaqeysay la soo gaaray in la aamino in bangiga adduunka uu na aamino inay aaminaan European Union inay adduunyadu soo fahamtay in dawladda Soomaaliya ay hayso shaqo lagu aamini karo waa waxaan ugu hambaleynayo ummadda Soomaaliyeed. waa shaqo bilow ah laakiin nagu ridi doonto dariiqa saxda. sanadii bar ka hor markii aan bilownay shaqada ayaan aniga madaxweynuhuna u sheegnay ummadda Soomaaliyeed haddii aan dhaqaalaha dalka wax laga qaban lagama qaban karo siyaasadda, lagama qaban karo arrimaha bulshada, lagama qaban karo arrimaha amniga. dhaqaaluhu waa laf dhabarta. waxaan u mahad celinayaa ganacsatada Soomaaliyeed oo nagu caawisay inaan soo gaarno meesha aan joogno. waxaan kaloon u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha dawladda meel walba ay joogaan iyo dadka dawladda ka tirsan oo iyaguna nagala shaqeeyay meesha aan joogno. maanta meesha aan taaganahay marka waa meel muujinaysa ummadda Soomaaliyeed inay leedahay fursad weyn. fursadaasna waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed inay wada ilaashadaan. midowga Yurub oo go'aan ku gaaray in dawladda si toos ah loogu taageero sababo la xiriira in ay la timid hufnaan iyo dib u habeyn ballaaran oo dhanka dhaqaalaha ah ayaa dhawaan ansixiyay bixinta 100 milyan oo euro taasi oo si toos ah loogu shubayo qasnada dawladda.